Assalaamu calaykum mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada Machadka Darwiish Academy. Qaybtan waa qaybtii sare, waa erey bixinta qaybta sare. Waxaan halkan ku qeexayaa ereyada ugu badan ee dhigihiina ku soo laalaabanaya marka aad qaybtan sare casharadeeda dhageysanaysaan. Waa muhiim inaad meel ku qoratid. Waa muhiim inaad si fiicanna u dhuuxdid qaybtatan ereyadatan oo aad fahantid qeexidoodana casharkana waa fahmaysaa. Okay, haddaan ka bilowno qodobka u horeeya koowaad waa maxay nature baa mar walba dhigihiina kusoo dhici doona ama aan kaga hadlaya casharo nature. Marka nature-ku waa qaab dabiiciga suuqa. Suuqa kani waxa uu sameeyaa wax la dhaho yacni dabiici. Suuqu waa maxay? Waa waxyaabo waxa weeye soo laalaabanaya aad arki doontid waana arki doontaa nature-ka aan aad uga hadli doono. Waxa kaloo jira impulsive nature. Waa maxay impulsive nature? Suuqu mar walba uu dhaqaaq sameeyo. Tusaale oo kale suuqan waxa uu sameeyaa dhaqaaq. Waxa uu galay correction. Correction-ka kan marka uu ka baxay dhaqaaq kale uu sameynaya. Dhaqaaqan oo la eg dhaqaaqa kan. Dhaqaaqan wuxuu la egyahay kii hore uu soo sameeyay. Kaas waxa la dhahaa impulsive nature. Sababta halkan uu hore uga dhacay kadibna mar kale oo halkan ka dhacay. Taasna waxa la dhahaa impulsive nature. Waxa kaloo jira wax la dhaho corrective nature oo suuqu mar walba oo halkan ka galay correction buu galay soo mar kalena correction buu halka ka galayaa suuqii. Waxa la dhahaa marka corrective nature. Okay. Hadda isku qabadsiisid saasuu noqonaya waxa la dhahaa corrective nature. Jahwareerka Soomaalina waxay ku noqonaysaa jahwareerka dabiiciga ee suuqu sameeyo. Kana waa dhaqaaqa dabiiciga ee suuqu sameeyo. Dabiicigu waa maxay? Halkan uu ka dhaqaaqay, jahwareer kadibna wuu socday, dhaqaaqa uu sameeyay. Okay. Waxa kaloo ku xiga waxa la dhaho structure. Structure-ku mar walba dhigihiina ugu soo dhici doonaa waa qaab dhismeedka suuqa. Qaab dhismeedka suuqu markuu yahayna waa maxay? Marka waa candleskii, patterns-kii, wixii oo dhan isku tagay, calaamadihii waxay noqonayaan structure ama qaab dhismeed qurux badan. Waxa kaloo jira impulsive waxa la dhaho. Halka waxa ku soo aragteen impulsive nature. Maxay ku kala duwan impulsive nature-ku? Impulsive nature-ku wixii hore u dhacay oo mar labaad dhacay balse impulsive kan kaliya marka uu suuqu yahay waa maxay? Saa markuu yahay suuqu waa dhaqaaq baa la dhihi karaa. Aysan dhicin weli impulsive baa la dhahaa. Marka taas weeye correction-na waa maxay? Waa jahwareerka markuu galay suuqu horeeyay baa la dhahaa correction oo farqiga u dhaxeeya sidaas weeye jahwareerka suuqa ma aha kan jahwareerka dabiiciga balse corrective nature waa jahwareerka dabiiciga ah. Okay. Waxa jira wax la dhaho marka entry waxa la dhaho baa jira. Entry waa meesha caadiga ah ee aad suuqa ka gelisid. Maxaa ka wada meesha caadiga ah suuqa ka gelisid? Waxa jira wax la dhaho aad u maqlaysaa wax la dhaho entry. Ya, reduce risk entry. Yani halkan waxa dhihi karnaa waa reduce risk entry. Meesha tan waa reduce risk entry. Waa reduce risk entry. Reduce risk entry-ga kani waa maxay marka? Reduce entry-ga kani waxa weeye meesha suuqu marka uu jabsado. Tusaale oo kale suuqan wuxuu ku jira correction. Suuqan halka correction buu kaga jiray dhaqaaq buu saa u soo sameeyay. Markan uu jabsanayo halkaas waxa la dhahaa reduce risk entry marka impulsive-ka kala qabsanaysid. Marka halka kale ka qabsanaysidna meesha kore ka soo galaysidna waxa la dhahaa risk entry. Kana waa maxay? Waa reduce risk entry baa la dhahaa. Aad baa iyadoo faahfaahsan ku arki doontaan. Halkan hadaa ku dartid reduce risk entry baa la dhahaa. Marka reduce risk entry-ga kani waxa weeye waa meesha marka suuqa aad ka gelaysid halkan oo hubantiya. Laakiin halkan marka ka gashay risk entry baa qaadatay oo suuqi ma large correction-ku ma kugu dheeraan karaa. Taasna waxa weeye waa farqiga u dhaxeeya waa kaas risk entry. Waa meesha khatarta ee suuqa ka gelaysid. Kana waa maxay? Meesha caadiga ee suuqa ka gelaysid.
waxa kaloo jira wax la dhaho momentum. Momentumku waa maxay? Waa xamaasadda suuqu marka ay kacsan tahay, yacni marka uu fiican yahay suuqu, momentum fiican suuqa ka jira oo si fiican suuqu u soconayo baa la dhahaa, oo liquidity badan yaala, momentum xooggan suuqa jira, buyers ama sellers badan ay ku jiraan, dad badan suuqa ku jiraan. Waxa kaloo jira waxa la dhaho cajiiba market behavior, yacni suuqu market behavior wax walba wuxuu leeyihin dabeecad. Market behavior marka waa dabeecadda suuqa ama dabeecadaha suuqa, market behavior-ka. Marka mar walbo aad baratid market behavior-kuna waxa weeye oo mar walbo aad sirtii suuqa aad fahantid. waadna ku arki doontaa casharada ana aad ugu sharaxaya. Waxa qaybta tan waa qayb muhiima marka. Qaybta tan waxaad aragtay move your stop loss, yacni baa maqashay oo keenso entry pointiga to the entry point. Yacni waa marka aad stop loss-kaaga suuqii waxa ka gashay tusaale kale euro JPY waxa ku soo gashay sell baa ku soo gashay, halkaasaa ka soo gashay, lacagta ku dhaqaaqday DB-gaaga u dhawaa meel fiican, kadib entry-gii baa keensatay, stop loss-kaagi halkaas yaala waa soo durkisay, stop loss-kaagi halkaas yaalay oo waxa keentay halkana keentay meeshii aad entry-ga ka gashaa keentay. Taasaa waxa la dhahaa qaybta tan waxa way break even, waana qaabka aad u soo durkinaysid entry-gaaga oo u keenaysid waxa la stop loss-kaaga aad u keenaysid entry-gaaga way, stop loss-kaaga aad u keenaysid entry-ga aad ka gashay suuqa. Okay, hadhow si aadan waxa weeyaba uga walwalin oo barta u gashatid take profit-kiina uu kugu dhaco suuqii markaad aragtid inuu ku dhawayo. qaybtan iyadana waa qayb muhiim ah oo waxa weeye waa marka labaad ee aad lacagta koob kale ka gelaysid ama entry kale ka gelaysid. Maxaan ka wadaa marka? Tusaale oo kale lacag baa halkan ka soo raacday, meeshaas lacagtan ka soo raacday, halkaas kore baa ka soo raacday lacagta tan. Okay, meesha kore ka soo raacday lacagta intaas dhan waa la socotay, correction bay gashay, kadib waxa aragtay lacagtan inay sii dhacayso halka jabsanayso, kadibna halkana waxa ka gashay entry kale. Markaas waxa la dhahaa qaybta tan aad mar labaad gelaysid oo entry kale ka gelaysid suuqa ku sii soconayo, halkana ka soo gashay kadibna entry labaad baa ka gashay, marka lacagta position labaad ka gelaysid baa tanna micnaheedu noqonaysa. Mudanayaal iyo murwooyin, qaybta tani waa qaybtii sare ee qeexidda aan ku qeexaynay ereyada aad mar walba dhegihiina ku maqli doontaan, aad kuna soo dhici doonaan. La socda casharada taxanaha, inta kale ereyada kalena waxa ku dhex baran doontaan casharada sare. Waa mahadsantihiin mudanayaal iyo murwooyin, guul baa idiin rajaynayaa iyo farxadda noocyadeeda kala duwan iyo sirtii suuqa forex aad ka faa'iidaysataan.